gaari insha Allah ta'ala dana wax ka rajayna in Ilaahay aan la kulmo ana wax weyn oo diinka Ilaahay difaaca marka wax waa hooyo aabbar wax Ilaahay soo duceeyaan saas oo dardaarmo mujaahid xaqooda oo noqdan waxaan oo wanaagsan aqeerta hawada aan ku saaxiibnay oo idilkiinba meel walba aad joogtaan waxaan leenahay waqtiga idin wacnaado dhamaantiinba muuqaalka la gareeyo cid walba muuqaalka la gareeyo waxaan Allah subhanahu wa ta'ala aan kaga baryeynaa umuuray leedahay Ilaahay inuu sahla Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan awlaadda uu barakeeyo inta awlaadonkaan Ilaahay awlaad baariya hasiyo inta gurdoonkaan gur wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan ay baweyna hasiyo qof walba muuqaalka shirta ku qabtaa waa jimci rabbi subhanahu wa ta'ala waxaan kaga baryeynaa mal adduunyo aysan fileen inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu siyaa dambigood iyo dambiga waalidkoodana ee uu dhaafaa rabbi subhanahu wa ta'ala uu ku عزم جنة الفردوس على حاسدك وعلى نهي ومن شر حاسد إذا حسد الحاسد لا يفلح بإذن الله الكريم وحكودا بين يهوغي غساره ربي سبحانه وتعالى وحن كبر ينا انت حنوسا إنه إلهي حنونك وكدر قاضي عفمان وقبدله ربي سبحانه وتعالى أمد الصوماليين مرور بيجوكتي قرقار كيسين نسر كيسي بوين هاسيو وحن يقدرنا وررك إيمانا يا مقالة كسمايو وشيغيين هالكاسي وكدعي خرح اسمي دامنا وسو وين لوسو أقاسمي كاسو اللي قد لي حقيه قود روكتا قناعسيقا صوماليا هانا قدوميه rugta ganacsiga ee maamul goboleedka Jubbaland iyo waliba qaabka qaraxaasi loo soo agaasimay oo aan ka bixin doono ama xog xasaasi aan ka bixin doono hadduu Allah awood leh uu saamaxo ayaan idin soo gudbin doonaa si degan muuqaalka u daawo si aad u ogaatid qaabka uu dhacay qaraxa xilli lagu guda jiray salaada jimcaha ayaa la sheegay in qof ismiidaamiyaha uu soo galay masaajidka jaamaca ee magaalada Kismaayo ee xarun goboleedka Jubbada Hoose halkaasna salaada uu kula tugtay gudoomiyihii rugta ganacsiga ee maamul goboleedka Jubbaland ahaana xogiyihii guud rugta ganacsiga Soomaaliya Allah u naxariistay marxuum Shaafi Raabi ayaa la sheegay inuu kamid ahaa dadka salaada jimcaha ku tukanaya masaajidka weyn ee magaalada Kismaayo ee xarun goboleedka Jubbada Hoose waxaana la sheegay goobtaasi inuu ku sugnaa qof isku soo diyaariyay salaada jimcaha kadib inuu isku qarxiyo Shaafi Raabi salaada markii laga soo baxay ayaa la sheegay meel banaanka masaajidka ah inay isku heleen qofkii ismiidaamiyaha ahaa iyo waliba Allah u naxariistay marxuum Shaafi Raabi gudoomiyihii rugta ganacsiga dowlad goboleedka Jubbaland ahna xogiyihii guud ee ururka waa rugta ganacsiga Soomaaliya Shaafi Raabi ayaa la sheegay in wiil dhalinyaraha uu soo sikaday si uu u salaamo Shaafi laakiin mid kamid ah ilaalada ilaalinaysa xogiyihii guud ee rugta ganacsiga Soomaaliya ahaana gudoomiyihii rugta ganacsiga Jubbaland ayaa la sheegay inuu dareemay in qofkan uu wax maagan yahay wuxuuna damcay inuu celiyo celintii ayaa waxa taas ay ka dhalatay inuu u soo ordo dhanka uu taagnaa Shaafi Raabi waxaana la sheegay inuu isku duubay dabadeedna uu isqarxiyo qofka ismiidaamiyaha ah oo la sheegay inuu ahaa qof dhalinyaraha sida ay sheegayaan goobjoogayaal ku sugnaa goobta masaajidka ismiidaamintu ay ka dhacday magaalada Kismaayo ee xarun goboleedka Jubbada Hoose maamulka Jubbaland ayaa la sheegay in howlgalle ay ka wadaan guud ahaan magaalada Kismaayo ee xarun goboleedka Jubbada Hoose taas oo lagu doonayo in lagu baaro ragga soo abaabulay weerarkan ismiidaaminta ee qofta naftiisa biimeeyay uu fuliyay ayadoona la sheegay in gudaha magaalada Kismaayo lagu soo diyaariyay weerarka ismiidaaminta ee lagu dilay gudoomiyihii rugta ganacsiga ee Jubbaland ahaana xogiyihii guud ee rugta ganacsiga Soomaaliya Allah u naxariistay marxuum Shaafi Raabi waxa la sheegay inuu ahaa xubin firfircoon oo ka tirsan ganacsatada Jubbaland isla markaana ka tirsan uu ahaa gudoomiyihii guud ee rugta ganacsiga Jubbaland waxaana xiriir dhow ay lahaayeen hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo dadka qaarkiis ay sheegayaan inuu ahaa gacantiisa midig waana mid keentay in weerarka ismiidaaminta ah lagu fuliyo marxuum Shaafi Raabi oo ku geeriyooday maanta magaalada Kismaayo kadib markii wiil isku soo xiray waxyaabaha qarxa uu isku duubay dabadeedna uu isku qarxiyay haddaba wixii ku soo kordha arrintan iyo waliba muuqaalo ay duubeen kaamirooyinka qarsoon goor dhow halkan ka daawo haddaba sidaad u heshid xogtii ugu dambeeyay iyo waliba macluumaadka Soomaaliya ku saabsan ku soo biir page-keena